wacan oo wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan meel walba oo aad joogtaan oo aad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada mar kale iyo tixanaha murtida iyo maahmaahyada. tixanaha murtida iyo maahmaahyada waxaynu ku eegi doonnaa murtidii la dhihi jiray xog warran. murtidaasi waxa ay ku timid qisadii la dhihi jiray xog warran. sideedaba waayo kaste waxa uu leeyahay dad gooni ah oo laga wareysto wixii markaa taagan ama horay u dhacay. caaqil siyaad oo ku magac dheeraa dharyadhoobe waxa uu ka mid ahaa dadkii iyaga looga dambeeyey fikradaha ka dhasha maahmaahyada iyo orahyada taariikhiga ah. siyaad waa ninkii lagu xujeeyey hashii la laqsiiyey masaarta. ninkaasi ayaa waxaa la weydiiyey su'aalo gaaraya 6 oo ulajeeddadoodu ahayd in lagaga faa'iidaysto ama lagaga reebo oraahyo, maahmaahyo ama murti taariikhda gasha. haddaba sida aynu goordhow arki doonno waxa uu ka jawaabayaa 6 samaantooda, balse xumaantooda wuu ka aamusay isagoo dadkii u tilmaamay inay weyddiiyaan qof isaga kaga aqoon badan. waxaa la yidhi iyadoo maalin shir la wada joogo loona wada dhan yahay ayaa waxaa siyaad la weyddiiyey su'aalahan si looga faa'iidaysto xigmadihiisa. waxayna ahaayeen kuwa si toos ah ama si dadban u taabanaya nolosha dadka. dhegaystayaal, inkastoo sheekadan dhacday waa hore ayaa waxaa laga yaabaa in ay ku khusayso amase aad la kulantay. waa kuwan su'aalihii. dadkii ayaa waxay yidhaahdeen, siyaadow nooga warran 6 waxyaabood. 6daa waxyaaboodne waxay kala yihiin rag nooga warran, haween nooga warran, geel nooga warran, lo' nooga warran, ari nooga warran, fardana nooga warran. wuxuu yidhi siyaad, dadow idin warramay. su'aalaha aad i weyddiideen mid waliba waxay leedahay samaan iyo xumaan, balse anigu waxaan idinkaga warramayaa samaantooda. xumaantoodase waxaad weyddiidaan dadka iga aqoon badan. midda koowaad ee aad tidhaahdeen rag nooga warran, waxaan idinkaga warramayaa samaantiisa. rag samaantiisa waxaada wax ka sii, wixiisana baahi u cun. rag samaantiisa waxa ay ku jirtaa inaad wax ka siiso waxaad hesho. haddii oo kugu arkana inaad wax ka siinayso waxaaga, weligiisa kuma hilmaamayo oo wuxuu ka sheekaynayaa abaalkaad u gashay, wuxuuna ku dadaalayaa inuu samaan kuula dhaqmo. sidoo kalena wixiisa baahi u cun, maxaa yeelay ragga baahidiisa waa ay badan tahay oo waxaa ku xidhiidha dano fara badan. sidaa darteeda wixiisa lama hunguriyeeyo oo waa laga fogaadaa inay baahi kuu geysa mooye, oo way ku adag tahay inuu si sahlan ku dhiibo wixiisa. oo waa tan la yidhaahdo wax rag kaa galay rako kaa galay. waxaa kaloo la yidhaahdaa rag cududiisa isu keen, calafkiisana kala dhoor. samaantiisa waa kaas buu yidhi siyaad. xumaantiisase waxaad weyddiidaan ninkii ka abaal dhaca, isagaa iga aqoon badane. tan labaad waxa uu yidhi haween samaantooda waa u samir ama ka samir. dadka ka hadla arrimaha guurka waxa ay yidhaahdaan markay ka hadlayaan dabeecadaha dumarka, marka koowaad dumarku waa jeceyl, marka labaad waa macaan, marka saddexaad waa caafimaad, marka afaraadna waa dhib iyo dheef iswata. haddaba marxaladdaasi ugu dambaysa waxay u baahan tahay samir si uu u sii jiro reerka la xosay halka habeen ee isugu horraysay. balse ninkii aan ka bixi karin dhibkooda ma helo dheeftooda ee waa inuu ka samraa guurkooda. xumaantoodase ninkii doonaya inuu ogaado ha weyddiiyo ninkii 2 cirguduud la tirsada, saa isagaa iga aqoon badane. midda saddexaad, geel samaantiisa waxa weeye buu yidhi korkiisa ha kaa qarsoonaado, koortiisuna ha kuu yeerto. geela oo ah xoolaha ugu muhiimsan xoolaha ay Soomaalidu dhaqato, waxa uu ku dhaqaaloobi og yahay dhaqashadiisa hadba meesha oo markaa daaqayo, sida ay dhirta ugu badan tahay oo ay korkiisa u qariso ilaa uun lagu raadiyo dhawaqa koortiisa. balse xumaantiisa waxaa weyddiisaan buu yidhi ninkii 3 jir isagoo ah rartay 6 jirna raaciyey. tan afaraad, lo' samaanteeda waxay ku jirtaa buu yidhi inay 2 lugood oo hore biyo kula jirto, 2 dambena caws. sida la wada og yahay lo'du waa nafley nugul, mana joogi karto caws iyo biila'aan. sidaa darteeda waxaa lagu hayn karaa inay 2 lugood hore biyo kula jirto, kuwa dambena caws.
xumaanteedase waxaa weyddiidaan buu yidhi ninkii 3 maalin qadiyey erigna u dhiibtay isagaa iiga aqoon badane. midda shanaad, ari samaantiisa waa meel naq leh ha daaqo, haweeney wanaagsanna ha ilaaliso. siyaad sida uu sheegay waa runtii, oo arigu haddii uu helo meel naq leh kuna darsada haweeney yur ka tidhaahda baalaha wuu naaxaa, xeradiisune ma marnaato. xumaantiisuse waxaa weyddiidaan buu yidhi ninkii ruun xanan leh ku furay isagaa iiga aqoon badane. midda 6aad ee ugu dambaysa, siyaad wuxuu yidhi fardo samaantooda ku joog ama ka joog. waayadii hore fardaha waxaa loo isticmaali jiray gulufka colaadaha, safarada dhaadheer, tamashlaynta, balse farduhu ma ahan sida geela oo ay carruurtu kaxayn karaan, oo farasku isaga markii loo heenseeyo qalabkiisa oo idil sida kooraha, xakamaha iyo salabka loo qaato dagaalada, waxaa jirto hab loogu halabsado faraska korkiisa. balse xumaantiisa waxaa ka sheekayn kara ninkii col inta uu soo weeraray is yidhi bal ku baxso faraska, hase yeeshee markii uu damcay inuu korka kaga dhaco oo faraskii ka baxsaday, isagiina dhulkii ku dhacay. dhegaystayaal, ugu dambaystii dadkii oo dhan waxaa halkaa ugu caddaatay inuu siyaad yahay nin xigmad eebbe ku manaystay. maalintaasi su'aalihii uu jawaabaha ka bixiyey waxaa laga heli karaa nolosha bini'aadamka meel kasta oo ay joogaan. dhegaystayaal, tixanaha murtida iyo maahmaahyadane maanta halkaa ay noo joogto, ta intaa ku kulmi doonno qayb kale.